Xukuumadda shaqaale wasaaradda walbarashada oo uu hogaamiyay wasiirka hoggaanka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare Koonfur Galbeed iyo waliba kormeerna iskuulada ka yaala magaalada Baydhabo kormeerkaas oo uu socday muddo lama maalmood kaas oo jeediyay uu sahayo ankuurgalowga xaaladda walbarashada iskuulada degmada Baydhabo kormeerka kureed waliba warbaahinta si wada jiraan la hadaleena gudoomiyaha walbarashada degmada Baydhabo kan gobolka Bay iyo xukuumadda shaqaalo wasaaradda iyo waliba sheegana inay muhiim tahay in la hoojiyo tayada walbarashada awlaadda reer Koonfur Galbeed باللي ديسمبر 28 iskuulada Lanqeybi kaas oo lagu goon lahaa intii la sii mas'arday Soomaaliyeed ku faa'iideysadaan manhajka gaar ahaan degmada Baydhabo oo kadalo afka gudoomiyaha waxbarashada degmada Baydhabo ma basanay waa iskuulo oo 24 iskuulo booqan shalay geek markan ma ba ku fiiriyaan inuu marka iskuulka sana kala tacaalana qaabka manhajka intii iskuulka halay tirada la faday iyo intii deersi ardayda intaas ka warbagaan waa intaasana iska darnay kormeerkana waana ba ku rajayna insha Allah intii geesi sanadkii oo kasto usbuuc hadda bilowjii formisan dugsiyeedka 2019 wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Koonfur Galbeed oo hogaamiyayaan mas'uuliyiinta ka sareyta wasiirka waxbarashada wasiirka hoggaanka waxbarashada agaasimaha guud agaasimaha formal education waxyaha kale gudoonka gobolka iyo gudoonka degmada iyo qaybaha kale meel raayis quality assurance antaas may beryahan ka jarnay kormeerkii waxbarashada xilliga labaad sida ogdin may furmay dib u furmay xilliga labaad ee waxbarashada kadib markii meel raay taramkii kood la qaadi 15 maalmood fasaxeen la gali xatana waxbarashada dib laanka nagadi iyo kormeer oo meel raayso nooyo badan iska jariya wasaaradda oo lead gareys mas'uuliyiinta wasiir ku xigeenka wasaaradda wasiir Jibriil Maxamuud Aadan hogaamiyo iyo kormeerka Suubiyaan iskuulada degmada Baydhabo kiyaalan oo qaybo jeen iska jiraan qaybta public iyo private iyo iska jiraan saas oo kale kormeerkaas may ku socda degmooyinka gobolka Bay iyo gobolada kale Koonfur Galbeed marka kormeerkaas uu jeediis haay alxamdulillah may arday sanadkan ka guuleysay in iskuulada Lanqeybi manhajka waxbarashada dalka oo cusub ay wasaaradda waxbarashada federaalka saartay kaasoo dhamaan iskuulada la sii hadana dib fiiriyaan indaba galaani sidii meel raayis bad qabshay iyo diyaarin sidii diyaari lahayd qaabka Lanqeybi lahayd ardayda Lanqeysi lahayd taasoo maamulka iyo meel raayis waalidiin gudiyada kula hadlaan saasoo kale meel raayis sidii dib lahan kanagadi waxbarashada enrollment-igi wali meel raayis korar ejar iyo wali meel raayis oo wasaaradda xagga laga inta iskuul la siin saas sabab fuliyaan in ummadda way sheeganay inni yani ka dadaalan inni awlaad wala bara inni wal barasho liana ummad bulbay kiirta horumarshay hadda anta ummatiye wal barati dhalida wal barati bulshada wal barati insha Allah إذا منهج أنت هور لحد كجري منهج الجديسنو كو إمارات كوشين كو سعودي كوشين كو السودان كوشين كو كينيا كوشين هاي أتمنى هل منهج مديسين أو القوة السبيعية الصومالي جودهان المنهج كاسي أو مديسنو دعان كصومالي دعان كيس دين إسلام بس كريسن إني متلبر أولاد الكبير كري والدين تنك كورميران سكولي تنك كورميران ما يعني كورمير أرضي كورمير سكول كوشي معمول كوارسان كالحساتان معلمين تويدان سدي عليه حنقبها أرضي وتيدس تعليمات سريت أو أمتيس إدل شيء إدسترينج نقطوي دنك كراس نقطوي دسميدس نقطوي أن مارك تاي ما وها أن معلمين تي هدي أن درسين هدي كلام مارك تاي من هيتن هدي لسه نقطوي دنقول ببا مرني إن شاء الله هو مارك تاي والفعلنا على كلوني إسقالات بدنو ججبرو مارك تاي إنباهن أنتي أن مارك تاي كراستيو يحفظيو يو ما يوهده بالكوكبش إنباهن هارجني وأنا ما أركت تلعب لك قاعدون إن شاء الله هو بيلهير ولا يوم باهين ويك أقدر دون وزارة ما وهذا كورمير بدن يا جوكت وسمي دون كان لنا مك أكاد كور ما أركت ما يرجعنا إن شاء الله هذه أسبوعين هذا حضر لنا ما وهذا أنا سيبلاون مناهيتي سلم بالله وعشرة يوم ما أركت ما وهان صعدا يوم ما يكون دبوا قلدون يقولي بابا قابات كمعلمين إنبياء
iyo macallimiintaas iyo inka diyaarsiin maaragtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare koonfur galbeed mudane Jibriil Maxamuud Aadan iyo waliba fasalada usulka la hadlay ardayda inay hoojiyaan tartanka walbarashada iyo kala jaraan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir Soomaali guud ahaan tartan ku dhahoy yeesiin siidadka tartanka ku dhahoy meelsiin ku fadeeyay dadaal in muujidaan waa waxa hadii isin geeka kaalmo fayda galaan mayba amaan shantana deegaankii king iyo meelaha dawladii king iyo dhammaan waalidkii iyo magaalada iskuulkii iyo bulshadii tin dhamaantii yaa amaan shantan barana mayna la sanadkii mustaqbalkii ummadan horseeda fadhiyana gaasan hadii isin meelaha oo saaqad ama meelaha dadaalka la siin faray juhdigii waalidka siin galiyay maamulka siin galiyay dawladda siin galiyay intaas oo dhan isin banaac ka deedan mayna la sanad bareeto wadankii kan horseedii baaba iyo burbur horseedana gaasan marka lamadaas farqeen dhahoy shalka saasan hal dadaalooy marka lankii hadii sidii la tala galay soo kufayl sunnaga doon abaalmarintii hele wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaalaya ka muujiyaasa sidii la hoojiyay lahay tayada walbarashada deegaanada koonfur galbeed Ibrahim Hassan Ali Ibrahim Tolman raadiyaha iyo telefishinka koonfur galbeed Baydhabo.